بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir waxaan ka mid ahay wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho gaar ahaan ragga wararka doona waxa kalifay maanta in hadii aan nahay wariyaasha magaalada Muqdisho oo aan ku aragtimidaysannahay waxa kalifay maanta inaan qabanno shirkan jaraa'id cabasho aan ka nahay qaabka warhelista gaar ahaan wararka laga helo hay'adaha kala duwan ee dawladda waxaa jiro inta badan wararka waxa la isugu soo diraa Gmail wararkii loo arko iyadoo wariyaasha ay taasi ka keeneen dhowr jeer oo hore cabasho iyadoo wararka saxda ah aan la helin sidaas darteeda hadii aan nahay wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho haddana shirarka qaar warbaahinta si siman ugama qayb galaan shirkii ugu dambeeyay oo kala maanta horta waxa farxad ah oo ilaahay mahadis ah oo dawladdan aan ugu mahad celinaynaa in wadankeena lagu qabto shir caalami ah heerkiisa intaas leeg laakiin waxaan ka sii jeclaan lahayn hadii aan nahay warbaahinta Soomaalida in aan si wada jir ah si guud ah uga qayb galno maadaama hadda noo muuqato in warbaahinta la kala soocay oo dad gaar ah loo ogolaaday marka taas darteed annagoo ka duulayno aad ayaan uga xunnahay hadii aan nahay wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho waxaan ka hadlaynaa caqabad kale oo taagan oo la xiriirta arrinka warhelista iyo si madax bannaan in warbaahintu ay u hesho xogaha ka dhacaya dalka gudihiisa waxaana wariyaasha halkan jooga oo iyagu dibad joog ka ah kulamada dhacaya ee dalkan arrimihiisa looga hadlayo ee xaq ay u leeyihiin inay qayb ka noqdaan dadka tabinaya oo aan loo ogolaan ay cabasho ka yihiin qaabka loola falgalo ee dadka xilalka haya ama mas'uuliyiinta dalkan mas'uulka u ahi ay ula falgalaan marka loo eego dhanka warhelista waxaan cabasho ka nahay si guud iyo si gaaraba qaabka wararka loo helo oo dhowr jeer ama sanadihii la soo dhaafay taagneed waxaana ugu dambeeyay shirka ka dhacaya Xalane oo maanta qabsoomaya kaas oo looga hadlayo arrin la xiriira iskaashiga Soomaaliya oo ay qayb ka yihiin dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo sidaas oo kale beesha caalamka waxa inta ay warbaahintu xuraansatay la og yahay in shirkaas heerkii iyo dadkii loo baahnaa inay ka soo qayb galin si wariyaasha dhiiran oo maskaxdoodu furan tahay oo maaragtay awoodda u leh inay warar sheegaan looga hor istaagana goor hore waxa loo sheegay in magacay soo gudbiyaan ay dhikaaradooda gudbiyaan sawirro ku soo daraan iyo wixii la mid ah intaas oo dhan markii aan sameynay waxaana loo diiday ka qayb galno iyadana cabashan ka nahay sababta aan u aragnay in shirkaasna la kaga qarinayna waxay tahay in runta laga qarinayo dadka dawladda loo yahay maadaama dadkii mudna aysan ka soo qayb galin shirkaas warbaahintana waxa loo ogolaaday hal iyo laba iyo wixii la mid ah taasoo ka dhigan in qofkii aan jeebka ku jirin uu banaanka joogo iyo wixii la mid ah waxaan cabasho ka nahay inaan si madax bannaan u heli la'nahay wararka dalkan ka dhacaya gaar ahaan Muqdisho waxaana cid walba oo wax garada oo ama maaragtay dadka dawladda kor ka ilaashada ama dadka dawladdu ku dhisan tahay ama dadka wax garadka ee Soomaalidu u sheegaynaa in xamar iyo xukuumadda hadda joogtaba laga heli la'yahay wararka si madax bannaan wararka si gaar ah dawladda quseeya cabashadan intaas la xiriirta waxaan ku baaqaynaa in wariyaasha anigu aan ka mid ahay wararka raadiya loo fududeeyo wararka inay helaan si shacabka aan looga qarin wararka dhacaya xogahooda waxaan soo dhaweynayaa saaxiibadeeda kale ee wariyaasha ah ee iyaguna cabashada ka ah qaabka wararka loo helo asxaabta dhamaan waan idin salaamay magacaygu waa Maxamed Axmed Xasan Maxamiyulka waxaan ku biirinaa saaxiibada kale ee wariyaasha sida muuqato waxay soo gudbiyeen cabashooyin badan oo la xiriira dhanka warhelista barnaamijyada ay qabato dawladda Soomaaliya marka waxaan leeyahay dawladdu waxay leedahay adeeg kala duwan waxa si gaar anaga arinteena ay u taabanaysaa wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya marka waxaan ugu baaqayaa madaxda wasaaradda in si gaar ah arintan ugu dhabgalaan cabashada ka soo baxaysa wariyaasha maanta in ay dib u eegaan oo ay ogaadaan in ay yihiin waxyaabo jiro oo inta badan ka dhaca xafiisyada dawladda si gaar markii loo eego dhanka madaxtooyada waxa jirta markii ay jiraan safarada oo kale oo madaxda u safrayaan gobolada dalka inta badan wariyaal ayaa xafiisyada laga qoraa oo madaxdaas safraysa marka warbaahinno si gaar ah madaxa looga taabtaa iyadoo inta badan loo simin dhammaan warbaahinta afka Soomaaliya ku hadasha ee dalka ka howlgasha marka waxaan ugu baaqayaa wasaaradda maadaama ay shaqadeedu tahay dhankii warfaafinta in si gaar ah arintan si qoto dheer ay u baarto ay ogaato cidda barnaamijyadan taagan ee wariyaasha ay ka cabanayaan inta badan ku dhaqaaqda inay tallaabo sharci ah ka qaadaan oo wariyaasha ay u dhugluulaadaan
cabashooyinka ka soo yeeraya intaas بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي واشمس عبد الرحمن محمود oo kamida wariyaasha reporterska ama warka doona dhacdooyinka in wararka laga doonayo dhibaato laga kulmo xarumaha dawladda waxa ay muddo soo jirtay si gaar ah shirkan heerka caalamiga oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho 3 maalin ka hor ama 2 maalin ka hor ayaa la soo gudbiyay in wariyaasha ka howlgala reporterada iyo cameramanada ay soo gudbiyaan magacyadooda sawirro iyo waliba la isku diray maxaan ku raahdaa xog aad u dheer ka bacdi waxa dhacday in markii finalka la soo gaaray wariyaashii ama 3 TV ama 2 TV madax laga taabto iyadoo moodid si waji garasho ay uga qayb galeen shirkii anagina aan banaanka ka joogno shirkan waa shir aad muhiim u ah waa shir dawladda Soomaaliya aad muhiim uga waa shir ay muhiim tahay in shacabka Soomaaliyeed wax badan ka ogaadaan maadaama shirkan shirarka horeeyay lagu qaban jiray dalka dibadiisa marka waxaan dawladda si gaar ah ay mas'uuliyad uga saaran tahay in wariyaasha intay balamisay haddana markii maalinkii shirka uu qabsoomayay la yiraahdo 2 TV kaliya ayaa meesha ka qayb galay taas waa wax aad iyo aad looga xumaado haddaan nahay wariyaasha Soomaaliyeed ee u shaqeeya shacabka Soomaaliyeedna waxay nagu tahay dhibaato aad u weyn